السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكي كلا فائدة iyo wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed oo dhamaanteen aan kala faa'iideynayno ayaa maanta waxaan rabaa inaan ku soo qaato waxyaabo aan arkay in is-afgarwaab weyn inuu ka dhaxeeyo Soomaalida dhexdooda. waxa ugu weyn waxa way siyaasadda dibadda iyo ahmiyadaha siyaasadeed ee wadamada ay kala leeyihiin iyo waxyaabaha anaga dan noo ah iyo waxyaabaha aan dan noo ahayn inaan marka hore aan isfahamsiino ayaa muhiim ah. waxaan rabaa inaan kusoo qaato 5 factors oo maaragtay influence weyn ku leh ama 5 qodob oo saameyn weyn ku leh siyaasadaha xiriirka siyaasadeed ee wadamada ka dhaxeeyo iyo waxyaabaha dadku ay haystaan iyo waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay inaan fahmo. waxyaabaha مثلا loo orday adduunka oo dhan wadamada jiritaankooda waxay tahay in ilbaxnimada bini'aadamka markay soo baxday bini'aadamka meel walba ay joogaan waa isku baahi taasoo ah qof walba wuxuu u baahan yahay inuu dhergo inuu ku noolaado caafimaad fiican inuu ku noolaado jawi fiican marba sanad ka dambeeyo baahidii oo bini'aadamka qabay way kasii badanaysaa. maxaa dhacay horumarkii laga gaaray dhinaca teknolojiyada ayaa badatay marka wadan walba waxa la jecel yahay in shacabku ku noolaadaan habka ugu fiican ee ugu wanaagsan oo leh dhinac dhaqaale ahaan iyo wax soo saar. marka waxa dhici karta wadamo qaarkoodna inay si natural ah ama dabiici ah ay u haystaan dhaqaale ahaan oo ay waxyaabo kheyraad ay leeyihiin iyo wadamana inaysan lahayn laakiin uu ilaahay ugu deeqay inay yeeshaan maaragtay xikmad ama afkaar ay horumar dhinacaas ku gaaraan. ilaaha naga dhigo dadkii maadaama kheyraad aan haysano habkii aan ugu faa'iideysan lahayn oo horumar ku gaar lahayn inaan isfahmno. marka mawduuca maanta waxaan kusoo koobayaa ujeedada iyo ahmiyadda ay laga leeyahay siyaasadda dibadda iyo xiriirka ka dhaxeeya wadamada kadibna qodobada kale waxaan kusoo qaadan doonaa waqti kale. waxyaabaha ugu weyn waxa waaye wadan uu baahan yahay dhinaca dhaqaalaha inuu maaragtay horumar weyn ka gaaro dhinaca dhaqaalaha. haddii horumar dhinaca dhaqaalaha uu gaaro waxay imaanaysaa in shacabkii inay horumaraan in baahidii qofka uu qabay in uu kaafi uu ka fikiro berito marka nolosha lagu nool yahay inay noqoto mid aan faqri ahayn oo wanaagsan wadankiina xasiloonidii wadanka horumarka wadanka inuu yeesho awood. waxaa kaloo haddii dhaqaalaha uu horumar waxaa imaanaysaa wax la yiraahdo ka xoogida madax banaani dhinaca dhaqaalaha inaadan u baahnayn wadan kale. haddii wadan kale aad u baahan tahay waxa waaye mar walba waxaa kuu qasba inaad wadankaas مثلا xiriirka aad kala leedihiin in ama siyaasadiisa aad fulisid ama mararka qaarkoodna dhinaca dhaqaalaha inuu ka faa'iideysto. marka dhinaca dhaqaalaha horumarkiisa waxa waaye waa wax muhiim ah. talabaadna waxyaabaha kale oo isku haysto waxay tahay si horumar loo gaaro wadan walba wuxuu jecel yahay inuu dhul balaaran oo maragtay weyn oo kheyraad inuu yeesho. marka waxaa dhacday wixii ka dambeeyay bilowgii qarnigan ama kontameeyadii lixdameeyadii markii wadamo badan oo Afrika iyo Aasiya ay horumar gaareen gumeysigii ayaa ay sameeyeen habkii khariidada loo sameeyay in wadamo badan oo laba wadamo kasta oo xuduud leh sida India, Pakistan, Soomaaliya, Ethiopia laba wadan walba in ay xuduudkii ay u noqday mid ay weligood isku haystaan. waxa loo dagaalamayna waxay tahay dhul balaarsi in dhulkii inuu weynaado taasoo ujeedada ay tahay in wadanka marka inuu dadka shacabka markay horumaraan meel badan ay ku noolaadaan in dhul beereed badan oo wadanka uu leeyahay in kheyraad badan laga raadiyo petrol iyo waxa markay laga sii raadiyo kadibna ujeedada ugu weyn loo sii ordaa waxay tahay inay shacabkaas ay noqdaan shacab ku nool nolol horumarsan shacab leh awood dhaqaale oo muhiim ah. waxaa kaloo meesha jirta kadib waxaa soo baxay markii wadankii wadamadii ay horumareen ay horumarkii uu sii socday in marka lala soo baxo waxa la yiraahdo geopolitics taasoo macnaheedu tahay in eriyada qofka ugu sareeyo wadanka awood dhaqaale ama awood siyaasadeed ku leh. tusaale ahaan wadamada la yiraahdo galfka ama maaragtay gacanka carbeed Sacuudiga ayaa lagu tiriyaa inuu u dhaqaale fiican marka Sacuudiga wuxuu jecel yahay in wadamada kale
amarkiisa ay qaataan ama siyaasadiisa uu sii socodsiiyo. Maraykanka wuxuu jecel yahay iyo ruush waxay weligood isku haysteen inay noqdaan deeq bixiyayaal. markii deeq bixiyaal wadamada ay siiyaanna ay raacaan siyaasadda ay jecel yihiin. waxaa kaloo meesha aan ka maqneen in ay jirto dagaal diineed, taasoo macnaheedu ay tahay in dad badan wadamada horumaray inay jecel yihiin inay noqdaan wadan ka fog noloshooda inay ka madax banaanaato diinta. wadamo kalena ay jecel yihiin inay ku noolaadaan sharciga diinta. taana waxaa imaanaysa iska horimaad. marka haddii dhaqaalahaaga uusan horumarsaneen, mar walba waxaa dhici karta in aad hoos timaadid wadamada kale. waxaa kaloo meesha jirta oo muhiim ah adduunka la isku haysto waxay tahay ma aha sharaf iyo ixtiraam. waxa waaye sidii loo heli lahaa kheyraadkii dhinaca biyaha ama cabitaanka biyaha wadamada laga heli karo aan ku filnaan doonin dunida inteeda kale. marka taa waxaa laga yaabaa in ay wadamo qaarkood inuu aad ugu yaryahay biyaha, wadamo kalena uu badan yahay. marka sidii wadanka uu heli lahaa biyo ku filan, taa laftigeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha la isku haysto. maalan sida Israa'iil iyo wadamada carabta lama deegaanka mar walba waxay ka fikiraan sidii harooyinka biyaha ama meesha biyaha u leeyahay ama wadanka sidii aad maaragtay uu heli lahaa biyo ku filan. taana maxaa yeelay adduunyada sida klimaadka waa isbedeshay, waxaa kusoo socota in biyihii uu aad u yaraado oo dunida oo dhan. marka in laga fikiro teknolojiya cusub iyo shacabka siday biyaha uga haqabtirmi lahayn. marka waxyaabahaas oo dhan waxay saameyn ku leedahay sidii siyaasadda wadan walba wadanka kale xiriirka uu la leeyahay. taasna waxay imaan kartaa in wadan walba haddii uu yahay wadan awood leh oo xoog leh, iyo xoog leh marka la leeyahay waxaa isugu jira in wadankaasi uu dhaqaale ahaan uu ka madax banaan yahay, uu yahay wadan dhaqaalihiisa ku filan oo weliba ilaa iyo muddo dheer, wadan xasiloonadiisa ay adag tahay. maxaa yeelay waxaa dhici karta wadanka hadduu yahay wadan aad dhaqaale fiican leh laakiin xasiloonida siyaasadda gudaha aysan ahayn. waxaa dhicaysa in sida Soomaaliya, Ciraaq, Liibiya oo maaragtay kheyraad badan leh haddana 30 sano dib u dhacay. maxaa ugu wacan xasiloonidii gudaha ayaan ahayn mid huban ama maaragtay mid sugan. marka taana waxay qayb ka ciyaaraysaa in wadanka dhaqaalihiisa ay dib u dhigi karto. taana waxa waaye waa mid muhiima meesha ku jirto. waxaa kaloo meesha jira in dhinaca waxbarashada iyo horumarka adduunka teknolojiyadana wadanka inuu ku hormaro tartan kala jira oo ah wadanba wadanka uu kaga horeeyo. maxaa yeelay wadamada Afrika iyo Carabta iyo isku mid maaha Jabaanka iyo Maraykanka iyo Yurub. mar walba waxaa lagu dagaalamaa teknolojiyada cusub iyo maaragtay wadankee ku hormar. teknolojiyada horumarkiisana waxaad ka shaqayn kartaa wadankii markuu xasiloon yahay, wadankii markii dhaqaalaha fiican uu haysto. maxaa yeelay jaamacadaha wadanka ku yaala waxay gaari karaan waxay u baahan yihiin dhaqaale aad u badan. wadankana wuxuu dhaqaalaha gelin karaa markii uu yahay wadan faqriga ka tagay. marka Soomaaliyana waxyaabo badan ayaa inay gaarto waxaa ka horeeya waxaa waaye shacabku inay marka hore ay indhaha furaan ay fahmaan, kadibna shacabkii inay noqdaan dad fahamsan sida ay u shaqayn karto wadaninimada ama xasiloonida wadanka sida la soo celin karo. cajalada kusoo xigta waxaan kusoo qaadan doonaa insha Allah waxyaabaha keeni kara in wadanku uu noqdo mid midaysan iyo waxyaabaha kala burburin kara. dadka badi waxay u haystaan in qabaa'ilkiisa haysto ama qabiilka ama maaragtay lacagta lagu dagaalamayo iyo awoodda maaragtay baarlamaanka inay ka mid tahay. ma jiro, waxaa jira waxyaabo fara badan oo dadka aan loo jeedin. insha Allah waxaan kusoo qaadinaa cajalada dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.